السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena qisooyinka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii allaha awoodda la ogolaado anigoo ah maxamed siciid cali maxamed turki. waxaynu ku soo qaadan doonaa qiso aad u la yaab badan. qisadaasi oo markaasi aniga laftigaygan igu dhacday. qisadu waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa aan joogay magaalada caasimadda Somaliland ee Hargeysa. dabadeetna galabkii ayaa waxa aan bilaabay inaan u baxo suuqa isla markaasina aan soo qabsado mid ka mid ah danahayga si aan markaas suuqa aan asxaabta aan waqti ula soo qaato. aniguna markaasi waxa aan naafo ka ahay dhinaca aragtida indhaha. dabadeetna markaasi waxa gurigii markaan ka baxay ayaa roob baa soo da'ay. markaas sicibku aad buu soo yeeshay si wanaagsan oo qurux badan ayuu u soo curtay. dabadeetna markaasi waxa aan qiyaasay roobkani inuu di'i doono isla markaasina uu ku soo beegmi doono kulliba waqtiga maqribka. aniguna markaasi waxa aan baxay intii aanay salaada maqrib gaadhin ilaa shantii oo kale ayaan baxay. dabadeetna markaasi roobkii ayaa soo da'ay. markii aan suuqa tegey aad ayuu u soo da'ay. dabadeetna markaasi dhulka oo dhanba waxa ay ahaayeen dhiiri isla markaasina qofku muu mari karaynin ilaa qof indha qaba mooyaane qof indhaha naafo ka ahi umay suurtoobi karaynin inuu maro. anigana waqtigaasi cidiilamay socon markaasi keligii ayaan ahaa. dabadeetna markii dambe ayaa galabkii markii aan suuqa u soo baxayey waxaan soo calaamadsaday dhammaan structureka dhulka, qaabka dhulka biyuhu ay fadhiisan karaan, dhulka dhiirigu uu markaasi u mari karo ee markaasi dhiiriga noqon karta. dabadeetna markii dambe ayaa waxaa la gaadhay inuu roobku inuu aad u da'o. kadib wuu qaaday roobkii. dabadeetna waxaan bilaabay inaan soo qabto xaafaddii markaasi aan ku noolaa. kadib sidaan intaan waddada soo socday ayaan markaasi maadaama aniga dhulku ay calaamadsan yihiin isla markaasina aan haysto usha ay isticmaalaan dadka ushani oo ah usha ay isticmaalaan dadka aragga naafada ka ushaasi ayaan markaasi aan dhulka aan markaasi aan ku cabirayay. kadib dabadeetna markii dambe waxaa iga soo horbaxay nin markaasi wuu isii hor socday. aniguna markaasi waan ka dambeeyey. dabadeetna markaa waxa uu bilaabay inuu ku dhaco oo markaasi uu ku dhici gaadho meel dhiiriya oo markaasi waddada bartankeeda ah. toosh ayuu markaasi uu iska sii horraysiinayay oo iskaga eegayey biyaha. kadib xaafadduna waxa ay ahayd xaafadda Sheelaha ee magaalada Hargeysa. dabadeedna markaasi ninkii waan ka dambeeyey. markaan arkay ninkii inuu ku dhacayo dhulkii anigu aan calaamadsaday ee dhiiriga ahaa ayaa ninkii sidaa u soo qabtay. dabadeedna waxaan ku yidhi ka joog, meeshan waa dhiiri, ha ku dhicin. kadib dabadeetna markaasi wuu ii duceeyey. wuxuu igu alla khayr ha ku siiyo, meeshan waad iga qabatay, maan arkaynin walow aan toosh aan ilaysanayey. tooshka iyo dhulka iyo dhiirigu intuba way isku ekaayeen, waxba kama garanaynin. dabadeetna markaasi ninkii wuxuu bilaabay inuu ii mahad celiyo. aniguna markaasi waxa aan sitay ushaasi. dabadeedna markaa ushii ayuu gartay maadaama ushu ay ula caana tahay oo lagu yaqaano dadka aragga indhaha naafada ka inay isticmaalaan. kadib waxa uu igu yidhi waa maxay ushii indhoolayaasha ayaa sida tahay, adiga ma indhoola tahay? kadib waxaan ku yidhi indhaha waxba kama arkayo badan siiba habeenkii. kadib dabadeetna markaasi waxa uu bilaabay inuu aad igu mahad celiyo. ninkii waxa aan noqonay saaxiibo markii dambe, dad friends oo aad iskugu magaranaysaa saaxiibo oo ah. kadib ilaa imika ninkii waxaan nahay saaxiibo. markaasi qisadan waxa aynu ka faa'iidaynaa qofka bini'aadamka ah haddii uu ilaahay uu awoodda lixaadkiisa uu meel ka kala dhimo inuu ilaahay uu meel u geliyo, meel kale inuu ilaahay u gelinayo. waayo aniga dhulka maan arkaynin, keliya waxaan ku soconayay maabka maskaxda ama qiyaasta waxa la yidhaahdo. ninkanina aragtidiisu kaamil bay ahayd. haddana waxa uu bilaabay inuu ku dhex dhici gaadho meeshay dhiiriga ahayd. aniguna waan ogaa meeshan inay dhiiri tahay. dhinaca commentiga ayaad kaga soo dhiiban doontaan aragtidiina. fadlan subscribe saar, like iyo share ku qabo, lana wadaag asxaabtaada. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. sidaas iyo nabad.